waxaan ka salaamayaa dhammaan xubnaha isku yimiday ee walaalada waxa kale oo salaamayaa cid ay baaq ku socoto madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantii waxaan isku nimidnay codsi aanu doonayno walaaladayda xidhan iyo sheekha waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha inay ila xasuusiyo sheeko nooga sheekeeyay isagu inta aanu musharaxa noqonin waxa gudoomiyaha xisbiga ayaan maalin isku nimidnay bilguule waxaan jeclaan lahaa waliba iga sii codsiyo kale in qolada xoghayntu ay qisada gaarsiiyaan madaxweynaha uu isagu nooga sheekeeyay waliba ahayd qiso waaqici oo dhaba uu isagu si dareen la nooga sheekeeyay ayaa maalin waxaan isku nimidnay bilguule madaxweynaha isagoo musharaxa xisbiga ahna gudoomiyaha xisbiga dabadeetana madaxweynaha magaalada yimiday cid buu way la kulantaa deetana markaasuu qoladii xisbiga u joogtay igaraalaha hargeysa yar haya markaasuu qoladii xisbiga u joogtay gobolka ayuu iskugu yeedhay inay maxaa dhacay cid ma arkan ii soo baxday cid ii timiday ma arko maxay isku siya xisbigii dabadeetana qoladii malaha xisbiga iyo odayaashii magaalada ku yidhi mudan madaxweyne dadku way ka cabanayaan xisbigan aad u tahay gudoomiyaha iyo musharaxa deetana wuxuu yidhi bal isku ka yeedha dadka alla kulmee wuxuu markii uu waxbayaan qisadeedu ku dheereen uu la kulmay ama wabacdan uga socdaa sheekada waxa weeye ayaa wuxuu nooga sheekeeyey uu la kulmay dad iyagii la iskugu yeedhay bulshadii ayaa wuxuu nooga sheekeeyey qiso ka dhacday isaga bilgubadla ku dhacday oo ah qiso dareen leh oo tanaan anagu maanta u taaganahay tu lamid ah wuxuu yidhi anigoo safar ka imiday oo Itoobiya ku soo dhaawacmay oo ka soo lugeeyay herar ayaan u soo lugeeyay buuri bilgubadle anigoo dhaawac ah oo aan socon karin oo laba nin oo u dhashay deegaankuna ay sidaan ayaan bilgubadle u soo lugeeyay buuri deegaankayga maan tagi karayn buuri waxa ka socday dagaalo ehelkaygana leema geen karayn oo dhaawac baan ahaa oo waxaan u baqay naftayda in dhaawac culus soo gaaro saadaradeed baan idhi buuri bilgubadle ii geeya dabadeetana waxaan imiday buuri bilgubadle la soo qaaday ilaa bilgubadle waa layla soo lugeynayay wuxuu ilaa intaan herar ka soo lugeynayay bilgubadle u soo socday afkayga jadiin maan marin buuri biyo igama daadegin anigoo dhaawac iyo gaajo iyo luun isku ka darsamay ayaa bilgubadle ardaa la soo dul jiifiyay buuri ardaaga waxa lahaa islaamnimo keenay ahayd ay isuu noo sheegay Jamaado Ismaaciil odaygii caga dablay oo lahaay dabeetana Jamaado Ismaaciil ba ardaageedii la soo dul jiifiyay buuri ugu yaraan 5 cisho af waxba maan gelin buuri anoo gaajadii iyo dhaawacii isku ka darsamay ayaa ardaaga Jamaado Ismaaciil soo dul jiifsaday buuri dabadeetana anoo isla talo ma dhaawacaad u dhiman doontaa mise gaajadaad u dhiman doontaa oo bilgubadlana laga wada qaxay oo cidi joogin oo warwarayo isla talo ma dhaawacaad u dhiman mise waxaad u dhiman doontaa gaajada ayaa Jamaado Ismaaciil oo markaa Allahu naxariistay caga dable uu xabad roodiyo uga keenay Hargeysa oo kala soo qaxay Hargeysa uga keenay oo xabada roodida 8 ciyaal leh isla u qaybi ayaa la yiri Muuse Biixi oo nin reer Samatar oo Sacad Muuse ayaa ardaagaaga dul jiifa oo gaajo iyo dhaawac bay soo dul jiifa dabeetana waxaan ku dhibay tir ciyaalkii aan ku yiri 8 ciyaal ahaayeen markaa lahaa ee jabkan roodidaan dii gogoynaya iyo waxaan isu qiimeeyay bay tir ninka dhaawac iyo gaajada la dul jiifa ardaagayga iyo maadsiisa ciyaalkaygii baan ku dhibay tir abtigiin ba Hargeysa ka imanayo idin keenay roodiye ordo kaga hortaga gaari malaa imanaya markaas oo Hargeysa ka imanay dabeetana gaarigii bay ku wada yaaceen bayt gaajo iyo luunka ay dirtii bay gaariga Hargeysa ka imanay wada yaaceen bayt dabeetana Muuse Biixi baan xabadii roodidaan 8 ciyaal ka qadiyay ee ka gaajoonayay yani la xalay waxba ka siinin ayaan isaga ku qabtay tiroon afku galiye dabeetana markaasaan wuxuu yiri isagu markii aan xabadii roodidaha arkay intaan layba siinin aan arkeen la soo wado ayaan si naftu way ku soo noqotay buur oo macal dhaawici ka bogsoon kacay buur marka waxaan uga socdaa mudan madaxweyne islaantaas xabada roodida 8 ciyaal kaaga qadisay ee habeenka 8 ciyaal door biday inay gaajo ku seexiso ee adiga ku siisa ayaa ciyaalkeed xidhin kuwii ay gaajada ku seexisay aad maanta jeelasha ku jira kuwaasna cafis kaaga dalbanayna kaaga sii darana kuwa gaajada habeenka ku seexday ciyaalkoodii maanta way gaajisay inay cid u shaqaysamayso waa 3 qodob istibiyaa marka de haddaad adigu maanta dhar ku seexanayso kuwii habeenka gaajada lagugu qadiyay mudane madaxweyne waxaan ka codsanayna in kuwa dhalana si gaajoonayaan caaw iyaguna jeelasha dhexdooda ku gaajoonayaan afis madaxweynaha kaaga dalbanayna bal intaas si dareen leh nooga dulqaado oo noo sheekadayda ay ku soo gaadhay mudane madaxweyne